جمعنا 3 أشخاص من الديانة waxaa la isku keenay saddex qof oo saddex diin kala haysta oo Kirishtanka, Yahuudi iyo Islaamka. Waxaan ogaanaynaa soonka iyo sida ay iyagu u sameeyaan. ninka ugu horeeya waa fanaan Tunisian ah oo Yahuudi ah. ninkan waa Kirishtan, Suxufi ah, Ciraaqiyaan ah. ninkan waa Suuriyaan cala ad-diin waana Muslim. ما هي مناسبة الصوم المهمة في دينك؟ soonka idinkugu muhiimsan ayaa la weydiiyay saddexdoodii. annaga waxaan ugu yeernaa maalinta cafiska ayuu yidhi ama maalinta toobadkeenta waa 24 ilaa 25. ka Kirishtan ahaan waxa uu leeyahay 5 ilaa 6 soon oo asaasi ayaan leenahay. soonka weyn waa 40 ilaa 50 maalmood. وعندنا صوم أهل نينوى اللي هو النبي يونان من دخل الموصل. هلا نحن بالنسبة لنا نحن المسلمين كمسلمين أهان أنا waxaan leenahay rukniga afraad ee tiirarka islaamka waa fard waa bil ama 29 ama 30 maalmood sanad waliba. maxay yihiin dabiicada ama waxa gaarka ku ah soonka? anaga soonkeeni waa soonka la soo dejiyay quraanka waa markii quraanka lagu soo dejiyay nabigeeni tobanka ugu dambeeya waxaa ku jira laylatul qadr. marka laga soo tago yahuudiyiinta aan diinta lahayn ma jirto wax shaqo la qabanayo, ma jirto wax iftiin la sameynayo. لا تخلي ضوء يشعل، تخلي ضوء يشعل باش تعمل كل شيء حاضر. way ka duwan tahay maalmaha kale ayuu leeyahay. حاضر من يوم الجمعة. احنا عندنا عيد maalinta jumcaha anaga waxaan leenahay ayuu yiri ciid qiyaamo. نفس العيد لأنه نشتغل قبل نهار. waxaan sameynaa maalintii raashin in la diyaariyo la soo kulleeyo kaniisadaan tagnaa gurigan ku laabanaa qoyska ayaan la dabaaldegnaa. dadka qaar 12 saacadood ay soomaan oo maalintii dadna habeenkii. anaga markii la shaaciyo ramadaanka waxaa jirta salaada taraawiixda in la ogo oo dadku ay masaajidda isugu yimaadaan salaada cishaha in la tukado kadibna taraawiixda lagu xidho. aniga waxaan rabaa inaan mid aan cadeeyo ayuu leeyahay midkan yahuudiga لأنه الله كيف خلق ilaahay koonkan wuxuu ku abuuray 6 maalmood sidaan ogsoonahay ayuu yiri. استراح فيه. maalinta toddobaad waa maalin nasiina ayuu yiri. اليهود يعملوا كي اللي يعمل الله معناتها يستراحوا يوم السبت. نفس الفكرة يوم الأحد. anaga kama siixiyaan ama Kirishtan ahaan waxaan aaminsanahay fikirkaas oo kale. maalinta axad ayay noo tahay may anaga axad ayay noo tahay muslimiintana jumco. العمر الذي يجب فيه الصوم. goormay ku waajibtaa ama daada ay ku waajibsoonka ayaa la weydiiyay saddexdood. islaamka waa xilliga qangaarka oo qofka uu qangaaro 10 sano dad ayaa ku qangaara dadna 12 sano ku qangaaraan markaas ayuu noqonayaa inuu soomo. yahuudi ahaan waxa uu leeyahay waxaan ku qangaarnaa 13 sano. xaflad ayaa loo dhigaa oo kaniisadda yahuudi lagu dhigo. waxa waajib ku noqday inuu soomo. Kirishtanka anaga kaliya waxa ay ku xiran tahay ayuu leeyahay qofku inuu soo caqliyeeso wacyigan uu la socdo oona awoodo inuu soomo. kuwa yaryar xitaa way awood inay soomaan ayuu leeyahay. بماذا تشعر عند صيامك؟ maxaa dareentiinaya yiri markaa soomanteen? ma dareemi karna ayuu yiri soonka wax la dareemay laakiin wax dhinaca la noogu yimid oo anaga waajib nagu ah ayuu yiri. anaga waan soonnaa waan isugu imaanaa qoys aan ayuu yiri. shucuurka waa in amar ilaahay ah oo waajib in la soomo. يعني بالنسبة لنا تقريبا نفس الشيء. يعني هو فكرة الصوم fikrada soonka waxa uu leeyahay ninkan Kirishtanka waa in Ilaahay loo dhawaado. ما هو أجر الصوم في دينك؟ ajarka soonka diintaada maxay tahay ayaa yiri. ajarka soonka islaamka waa ajar weyn balse Rabbul Caalamiin ayaa waxa uu gaara inuu isagu og yahay waa qofka isaga go'aaminaya ajarka inta uu la egyahay. waqtiga marka uu dareemo inuu daciif yahay oo alle uu weydiisanayo in loo dambi dhaafo waxaan u aaminsan yahay ajarkaas inuu yahay mid Allah uu weydiisanayo. ka Kirishtan ahaan waa soonnaa laakiin ma naqaano ayuu leeyahay waxa ajar uu yahay iyo natiijada waxa ay tahay. بكل الأحوال إنه أنت صمت وتبت
والله راح يغفر أكيد الله غفور رحيم يعني. laakiin waan soonna ilaahay waa noo naxariisanaya ayuu yidhi هل كنتم على دراية بطقوس الصوم في الديانات الأخرى؟ ma fiirisan ma soo aqrisan diinanka kale waxyaabaha ay ku gaar yihiin كبرت في تونس وكبرت في جربة وحياتي tunis ayaan kusoo koray ayuu leeyahay waxaan arag muslimiinta soomanayaan bisha ramadaan dowladaha carabta iyo ciraaq بالعراق ما عندنا ديانة ma taala ayuu leeyahay diin yahuudi ah كان في اللي احنا باعتبارنا لكن ما كنا نعرف انه المسيحية aniga dugsiga markaan dhigan jirnay ayuu leeyahay